بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبي يوتها فرحتي أن السيورات إن كسر قيب قالوا حريتان كدفعتي اللواد إشغاقرة وحكاهم هاي عضو كامل هذا كورونا فيروس أولي حفلة السيل ومعمول لها إن نار معمولين يلا أنا ينو قالنا ظروفها عافماتهم أنا قلت لقرينا أنت عضو كنت شري إلى دخول حريصنا إذا الله هو إذا بدينا إلى نور قبطان أنا قرآن صغير نعيدي والله هاي نكون قبلنا من الحرام هذانا تاشح بدن ومركي صوب قشين اللي فرعي حفلة اللي ما قبل سيد لو سودوين شري لو سودوين ظروفها حروكها صارة وحنا كم هذا إن نقطتين الكاس القوية هنا ومركي أي صوب قلنا halkan oo ظروف aanay aqoon ardayda ma yaqaan halkan aad timaadeen marka horena badankoodu waxay ka haystaan fikrad adag askar oobjac dhib iyo waxa loo adkaysan karay waxaan ku abareeyaa marka hore inaan noqoteen intii markiis cilmiga loo baaray aqoontoodana ku soo gashay oo qofna aanu khiyaamiyo dustusiyo gacan qabad ku imanin كي بدنا لقى صارنا عادي عندنا كهم بريري وحلا هذا قف كاره وحلوات المعروف نكا قف بدنا وحلو مشي ده دي نايم كان شغال غير شوتي كوي ولا متكا كان عضها كبحي waxay nasiib u heleen casrigan qofku isagoo gurigiisa jooga aqoonta tuu doono oo ku noqon karo baaxuur oo professor وأقولتها أنتم دورك جاري كرر تاسو أي دائرة تنشأ ذاتك أول بدو كودو آريه مركب هو حلقة مع كلمات تجرك سكندري وكجرامات موضوع كستول لجها ضايع أما subject كستول لجها ضايع إنه أقول فرق بدل ريه أما مركب بعده وكهر أيوه عصرنا تعتبر الإنترنت يقوم مركب واحد بدل إذا ترتلمه مايو waxaan ka daragsanaa ku iman qaba inaad aqoon badan leeyahay laakiin waxa la sheegayaa aqoonta marka lagu laro waayo aragnimada wax badan baa soo baxa marka wixii waayo araga ay baan dhowr qodob idinka taabanaya oo aan badnayn maxaan ku falanaa shaqo qaran dadku waxay isweydiin karaan dhalinyarada waa la soo ururiyay hanti badan baa la geliyay guryaha la dhisay shaqada la qabtay waxaana hawlaha la galay dhalinyaradi saddex bilood baa la xiraya wariga gabdhaha lama xirayo saddexda biloodna waxa loo soo diraa qolaaska oo jac iyo orod iyo istuur iyo xagar oo carad iyo rafaad baa lagu kuliyay war dadkii maxaa meesha saddex bilood maxay qiimadeedahay dad baa day isweydiinayeen waxaan doonayaa inaan shaqeeyo saddexda bilood horta danteena tirada sanadkan ka dhigi lahayd ama lix bilood qof waliba markuu sii joogo waxaan waa inuu jeclaysanaya shaqo qaran sii joogo فكرة ماشي بتجرا وحوي أقوال بعضها دكتور بعض عقلات كبرى تقانا إنجنير بعضها إنجنيري كبرى تقانا يقولها يلا وحنقولنا إلى البرمفكة شقوي كأورنا قف هدو دول يقولوا قاريانو قرقس قبلها ما لها ذاتك الصومال لما أنتم لو تذكر إسلام حكمنا هو قابلته ayaan iska dhimay qof waxaan baranay hierarchy tii reer guraaga oo ah xoog weyn iyo ninka iyo wal masal gal qoro oo loo raaco seegeen loo saxay seegeen loo daafaco safar salafo shaqada nolosha inteeda badan ma tixgeliyo Soomaaliya marka guriga hadda ka soo qaado oo caruurtaada iyo reerkaaga ka soo qaado waxa laga yaabaa rag hawsha guriga taala kala bar 8 war ma hayo mana yaqaan nolosha iyada ku soo noqota rag wuxuu ka xaragooda ama waday aanu xil iska saarin inta badan caruurtooda markuu ceebtaas waxay soo baxdaa marka qurbaha la tago wad maqashaaro dadka alla qurbayaasha caruurta laga qaado Soomaalida u badan dhibtuna waxay tahay aabiga loo shaqeeyay qaadan waa dhaqankeeda oo wariga daadina yaray ina bedeshaan loo baahan yahay kuwa anaga waa lagu dhacay taas qoladayda hore
idinkaa loo baahanya inaad bedeshaan oo aabbuhu ilmaha sida uu doonaya ilmihiisa inuu noqdo inuu ka soo saaro waa inuu qaybta badan isagu qaata taa ma samayn labo qaybta shaqada nolosha ee caadiga ah hablaha waxba kama siino hooyooyinkeenna waxba kama siino xaaskeenna waxba kama siino waa dhaqankeenna oo geedkii baynu weli joognaa raggu baa geedka taga raggaa soo gooya raggaa yaqaan markii magaalada la soo degay ee bulsho badan isu timid ee meel lagu soo wada xorooday waxaynu u baahanay inaynu bulshadii u hogaamino si ka duwan sii geeljira waa qasab si ra'yigaa loo bedelana waa inaynu isu nimaadnaa da'yarta la yidhahdo war maxay naga qaldan halkan markaa waxaa ku dhaga doonaa ku barra waxaa weeye inaynu maskaxda sidaynu u fikirro aynu u hogaamin doono dalkeena jiilalka soo socda aynu bedelno duruuftu ma isaabixin in hablihii la xiran karo intana laguloo dhisi karo mana isaabixin in la dheereeyo booliska wixii laga doono dhan la dhameeyo laakiin maadaama aynu haysanno internet aynu cilmiga midba ka faa'idi karno inkastoo ta soomaalidu wax badan kaga jirin oo inaan aqoontaan ahayn haddana waxaanu doonaa halkan inaanu si mabaadi'eeda ku sheegno waayo aragnimo waar maxaa inaga qaldan ma jira adduunka dad 100 sano halkii ay joogeen u joogaan 100 sano ilaa maalintii haddaad imika tirsan sanadkaa waa 2020 iyo maanta haddaad soo qaado sheekada iyo fikirka soomaalidu waa halkeedii waa reer kufaankii waa qabiilo kufaankii waa nuurba taydaa toosan anigaa hagaagsan xaafadayaa dadka ugu wanaagsan annagaa dulman inta kale way qaldan tahay meel kastaa tugta soomaalidu caadadaasaa ilaahay baray oo ay dhaafi kari lahayn hadduu PhD qaatay iyo hadduu janan qaatay iyo hadduu madaxweyne noqday waxaynu doonaynaa waayo aragnimadaan ahayna inaan idiin gudbinayo doonaan taasi inaafici mayse bedela haddaad tihiin da'deena maanta rageedu wadba waxaa ku bedelaysaa fikrada way noo bilaabay hadraawo heesta hooyo la yidhaha hadraawo ka hor wixii nin soomaaliyeed gebi jiray ama maamaa dhigi jiray hooyada meel uu tusay qiimaha ay leedahay hadraawo loogu horreeyey deetana qaar badan oo kale ku dayday maanta mar haddaan geedi la guuray mar haddaan reerreerka ahayn mar haddaynu meel isugu nimayn boqolaal iyo milyan qof inagoo ah haddaynu caafimaad wada baahannahay haddaynu waddo wada baahannahay haddaynu xukun cadaaliya wada baahannahay haddaynu tacriim wanaagsan carruurta loo rabno ku socon mayso inay maskaxdeeda tiirka imiga joogto oo reer kufaankii iyo gabaygii reeraha iyo anigaa mudan iyo taydaa saxa ku socon mayso waxay ku soconaysaa in la bedelo ood guriga ka bilowdo ood hooyada iyo xaaska iyo walaasha talada weydiiso waayo iyagaa danta yaqaan oo maxaa u yaqaanaa bal u fiirsada markuu qofku tabaalaha noqdo tabaaloobo uu bukoodo uu gaboobo oo wax ku dhacaan gurmadka ma raggaa gala mise haweenka nin waliba qoyskaaga u fiirso haweenkaa gala hooyada waa ugu horeysa walaasha waayo iyagu waxay leeyihiin tendensiga waxay leeyihiin dareenka bini aadmiga lagu koriyo lagu xanaanayo lagu dhaqaalayo ma aha sida raggu libaax oo kale u dharbo dareenka dadka lagu dilo loogu faano lagu dhibaateeyo xaawiladu ma laha markaa magaalada waxay u baahan tahay iyo dadkii soo ururay dad xanaaneeya uma baahan dadku duula markaa waxay u baahan tahay dadkii soo ururay dhakhtar iyo caafimaad iyo biyo iyo ciid nabadgelyadooda ilaalisa ciidanku ma aha dadka waxyeelaya hadduu military yahay hadduu boliis yahay hadduu asluub yahay wuxuu ilaaliyaa bini aadmiga wixii dhibayo ka qabtaa hadduu ciidanku dadka dhibaateeyo iyaga waxyeelayo ciidan maaha waa daari markaa ciidamadeedu waxay u taageran yihiin inay dadka ilaaliyaan oo dhibta ka ilaaliyaan oo gudahooda kala ilaaliyaan oo kaga darna qabtaan ee maaha ciidanka in loo arko wax wahlaaya wax laga أنا ما كان يقول يا الله فكر يا عن قاضي سأدري جلسة وحنا لا بحر إلا يسكر إنت اللي يرى وقت يومها بور هيك لا بارو
transformation in la bedelo fikirkeedii qoys gobol reer iyo hebelada ahaa oo wax la wadaago iyo raadiyo oo maxay ku midoobeynaa maxaan isbaraynaa dastuurka waxa laga yaabaa intaas ku jirtay qofna loo akhriyo waxa laga yaabaa golayaasha baarlamaanku maxay qabtaan maxay xaq loogu leeyahay maxaa adigu xaq u leedahay maxay ku leeyahay maxkamaddu maxay qabtaan inaan la ciidamada kale maxay qabtaan maxaa laga rabaa marka waxa barato system kar ay ku midoobay marka barato ee dawladnimada ah ee aad garanaysa waajibka laga rabay hay'adda qandaraas hay'adda imtixaanada hay'adda amniga dhaqso marka barato ayaa hawsheedu wax dooran ka qaban kartaa haddii aanad aqoonba waa diyaar ka xaq marka halka waxa uu keenay inaynu isla baranno dawladnimada waxay tahay waxay doonayaan iyo sidoo wada qabanayaan qoladii tacliinta aqoonta aad barateen inta saar kala kordhinay marka inta la helo maxaa la iska rabaa marka saddexdan bilood rag iyo dumar hablaha aan loo tababaray waxa ay fuuraya xil ah in aad u diyaar garowdaan dadka la su'aal birdadka inay hogaamiyaan shan sano faafir kabacdi waxa uu qaad badan oo baad shaqo qaranay inay noqonayaan saraakiil waaweyn oo ay hogaamisa dhakhtarro waaweyn oo dhakhtar haysata siyaasiyiin xisbi hogaamisa wasiiro qaarna ay madaxweyne sharaxaan shan sano da'di inay fogtahay imika waxa laga yaabaa dhowr iyo labaatan jiraad tihiin badalkii marka taacada ka baxdeen toban kale ku dhowr sumad maraysa dabcan waxa tii hogaamin waliba u sharaxa booska siyaasiga ee dadku jecelahay soo ayaa soo mardoonta haddana tababaranina oo maskaxdaada ka bedelinto kaligaa waxa hogaamin kale inta dhibaato ka hawlo waxay fogtahay habbi sanina wasiirka ka dhaqaaqay ma ardaydi soo wada qortay أقول ده صح قبل ألف كويسة ما أقول كل هو رجل هو حاجة يكون ما وده سؤال مبسط سؤال هذا الكلام كلام بق جماعة المسلمين كلهم كلام برا أعطيه أخبار تاني يشوف على هذا الدنيا أجا سبيا شو لو بيوام قرضي هم نبي كم هذا وصل سنة سنة كون تعرف الكلام سأل متهدو قابلنه بني رجل واحد معرض هنا خضبضة مركز صوكو انت ما كنا في شغل غرب يا حمريضه انت امان هاي ولا انت يا سمينه انا امانت حمريضه دي راعينيا امانت انا بربان سينيا وايو نورش xoogoodu uu haday xilkeedii saaran uu haday halkeedii doonina meelaan gaarin talaabiya laba qaaday hadii akaadimada sidoo ka doonina waa bir waxaan doonaynaa inta boqolkiiba boqol ka badan oo sameeyay marka birna ayaynu joognaa hawl badan baa inoo soo waakaadin oo kaliya dalkeena inta in lag baa inoo taalo dhalinyarada waxaan doonayaa marka dalkeena maanta xaalad ugu sugay maxaa soo jeedin waajib horta ilaahay mahadi ma jira adduunyada dawlad caawdana ka dhisan adduunka oo aan dhibteeda qabin oo aan nabadgelyada la rafanay oo aan dhaqaalaha la rafanay oo aan murakad la rafanay adduunka ma jirto waxa aan isleeyahay ilaahay mahadi manaa cid ka buuq yaray ma jirto adduunyada waxa la jantaado ugu xoog weyn Mareykanka malaa idaacada waa ka maqlaysa madaxweynihii Mareykanka oo inta xafiiska laga carabay bankarka la galiyay oo cid soo duuriyay ay dalkiisa haystay dal kastoo dhageysato adduunka dhibaato ka taagan waa nolosha kee loo wajiraysa oo way jiri doontaa oo idinka dhibaatada dhaxli doona oo xal iskeeda qaban doona kuwa ka dambeeya qabanay nolosha iyo dhibaatada waa walaalo way wada socdaan horumarkiisa dhibaatada way wada socdaan ma dabayso waxa lagu kala guuleystaa sida dhibaatada loo yareeyo horumarkana loo socdo taasina waxay ku timaadaa ismaqalka isku kalsanaanta confidence inaad aaminsantihiin dadkiina dalka wadana shaqeynaya oo meel wada jeedaan inaad dantiina wada garanaysaan waxa qabanaysaan guud inaad wada garanaysaan bay ku tahay haddii aan taa la garanaynin oo taas khaaf ku jirto wada la socon karo dadku socon maayo Soomaaliya labaatan soo kaasana ciidama ixtiraafay dawladda ma ixtiraafin dhaqaale buuran lama siinin oo dawladda maanta deeq kuma loo baahan wax ma siin IMF wax ma siinin cid wax u sheegan mayso soddon ka sanadoodna way koraysay oo maalinba talaabo qabs oo waa qala ka dhisan cid aqoon ilaahay mooyaan
وكالسماتا يسوع كالصورة ووحوة قبسك ومركب وحدة كالترسيس وتناسل ومركب حقوس قرن كدول لكن ضد هذا الشيء وحقرك كقبسة وقتل ولكن وأردت أن يكون صعب dhibaatada inoogu badan ay ka hormarsan sheegay hadda ee hortaada ee u baahan in gudbiyo waxa weey dadkeen maadaama 80% aanay magaalada iyo iskuulada u bartaan bi ahaayeen oo xataa haddii magaalada joogo shalay ka yimid waxa wali aan fahmin dawladda maxaa dawladnimada intii ka horsay Soomaaliland wuxuu la kulmay dawladda cadaawa tii Ingiriiska oo WhatsApp-ka ka baqo tii kale ee Soomaaliya oo ku biroobay dil iyo xarb iyo taariikh yar baan siinay xamar baraad ka taagan iyo khilaaf Soomaaliland oo isma qasho oo kolba hebel wada ku siitay lixda kiyo isma tartama jirin hebel wada u tagay garan maayo hebel adigu xildhibaan qabay oo daacadaas oo saameysan ayaa xamar tirtay habeenkii ay sodonka ahayd joog ee kowdii la saarayay calanka Soomaaliya koonfurta ee aadan cadala dhaariyay saacadii aadan cadala dhaariyay gurigii loo jiray gurigii baarlamaanka ayaa waxa ka bilaabay mudaharaad iyo isku hormaad iyo dagaal 300 baa la xiray 3 baa dhimatay 17 way dhaawacmay caalamkana waxa joogay 400 oo madaxa oo u imaysay inay midnimada Soomaaliyeed iyo xorriyadda qaato wariyaashii caalamka halka joogay waxa yaanay airport-ka bixinaan la xiro qaar baa diyaarad gaar kareysay oo Mareykanka iyo oo Nairobi ka digay oo warkii fidiyay kuwa Talyaaniga iyo qaar baa loo sii daayay hadda waa habeenkii la taagay midnimadii la sheegay ragul horoleeyay ay taas ka dhacday maxaa ka horeysay ku tookay waxa loo tagay oo ku dhaxdhacay dad iyaga maanta ay soo haystaan sideed konton iyo sagaal konton waxa ka socday xamar dagaal iyo mudaharaad xisbigii SYL marka lagu faanay ragii asaas ka baxay saqaawadiin intuu shaangaaltiga iskaga baxay waxa laga saaray Muuse Boqor iyo ragii bahalka amaaray iyo ragii waaweyn ayaa laga saaray SYL isla sanadkaas gaar ku tagtay xorriyadda Britain isku ay saddex goor cod oo qaaday dawladda Cabdullaahi Ciise dagaalkaas oo saa u xaqaya Soomaaliland waxa ka socday markaas Sooba iyo qoladii Baydhaba waxa la yiraahdaa laga furo xisbigaas waa loo Britain caalamka la qaadanay hal geebuuga waxa ka dhacay dagaalkii loo jiray كل دول جروب ولا وجري حسب جاس واحد جروب دول صدق حاجة هو أكمل إلى ما تطيبه تاني سومالي تصدق هالسنة كلام مغرين إياه أورد اعتراف بهلا كبح إياه صارت كم الدنيا يقولون مريكا كا 1 بليون اللي عقدوا كشوي أما أبي صور الله يقبحي أما برلمان كود شهران الصين أما وعيه كود هاللون تركوا كشوي أي لوبي هل كيف تاجت waxaan leeyahay dadka jooga waxay dhahdaa midnimo iyo dalkii jiray iyo wax soo hadal qaaday oo xageed ka socotaa waayahay xageed ka socota Soomaaliyeed midooda wax noqotay sharaf iyo rato weyn ugu jecel halkan ka aasantay Soomaaliland marka ninka maanta xamar u hadaaqay ama hadal hayo ama tan dhaleecay xamar xiriir way yeeshay wuxuu ka dooriyay Britain ama baarlamaanka xamar la hadal hayo gaashaanka u toonayo horta halkaas ku socota war maqalan baadaysa misan naftaada dhibaatada ku haysatay way su'aashu Soomaaliland dadka ka joog halkeed ku wada Soomaaliland wuxuu yaala meel iyadoo gobolkiisa 6 sanadood saasa meel ku dhaxbaysa marka ugu baaqasho gabayga la duufaan xasan garow wuxuu dirka faraacina inkastoo daruuriyo daadihiya waqallada dunyada loo warrado isna waxa ku diidaa oo waxa ka doorbiday inaan dunyada ku hayo daran ay daran ay ku cabaan dirka waxa la waa roobka koobaad ee sanadka markiisa koobaad ah faraaci waa roob hoora meel fog oo maraa daruur baa daada kuma soo celiso waa loo raraa xoolaheedu dad walba baa xabad isoo soo saaray hadana meel yar ka nool waa la daba guura waa lagu jabay war meesha waxa ka socda faraaci lacag baa lagu soo waa dirkii faraaci xasan kare sheegay intii uu furinayo
marka waxaan taa idinku sheegayaa dhalinyarada shaqaa qaran rag iyo dumarba waxaa la idinka doonayaa dalkan xilkiisa 30 jir baa maad ku dhowdahay waxaa shaqayn kartaa 30 sano ka bacdi 60 baa gaaraysa 30 ka sano waxaa laga rabaa dadkii gaarsiin lahaa technology iyo horumar iyo mushaaharo wacan iyo wadooyin wacan haddii saaskii iyo nabadii iyo dowladda aanu idiin dhignay dadka lagu wareejinaya inaan doonaya inay qaadaan waa taa qodobka kulan ku dardaarmayna waxaa taa gaaraysaa markaynu ka guurno fakarkii reer miyiga ahaa reer suufaanka ee qoys waraysigu dowlad gaara ahaa ee intii isku filnay ee isku leekaayeen daruurta iyo halka daaqayso iyo balaygaan ka kalena beerta ugu dhow beertiisa ugu goosto deetana soo qoro isku filnaa taasi ma soconayso population-keenu uu kordhaya qoys wada toobuu noqonaya waxaanu u baahanahay inuu dalkeena si cilmi leh hogaamino halkan waxaan idin kaleena fariinta qaadaan oo ku dhaqantaan qolada shaqada هذا نوع waxaan soo gabagabeynaya maanta waa la idin xilay halkan laga bilaabo maanta waxa ka mid ah ciidanka qaranka oo kayd baati matihiida qorshe oo leh ragii dumar kaydka ku jirtaan marka dalka loo baahday dhibaatana cadana waxa tahay frontiers oo horeeya beesha dadka joogta maanta dagaalkii ugu weynaa baynu ku jiraa faaraskaynu u dagaalamayna wacyigelin baynu u baahannahay xoog baynu u baahannahay dhammaan kuwa horiya kuwa dambe shaqada qaranka waxay ka ogeyihiin forontiyaalka halkii lagu hadala tagaaya waxay iska xaadirayaan barasaabada iyo gobollada waxay iska xaadirayaan degmooyinkooda waxay diyaar ku hanayaan wixii looga baahdo taasaynu joognahay dadin hore aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu